بسم الله الرحمن الرحيم daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha ee barta internetka wadani TV nagala socdo waxaan rabaa caawa inaan idin sheego barnaamijkii imtixaanaha inoo ahaa Baltoga oo u bixiyay aqarmood sida badhanba waxaan ku jiray muddo dheer oo aan ka soo diyaarinay barnaamijyo aad u qiimo badan oo aad nagala xiriiri doontaan oo aad la yaabi doontaan barnaamijka maanta hadda qaybtan si kaleeto aqarmood oo ah Baltoga waxaan rabaa inaan idin raasiisiyo horta waa meel ay bulshada ku baabaaday dhamaanteed waxaad arkaysaa nimanka dadka ugu badan ee soo galo waa qolyaha aan taageerada iyo taageerayaasha iyo gabdhaha gorobyada ee guryahoodii la xajisan waayay ee la soo furay haddaba gabdhahaasi waxay sameynayaan iyagana gabdhaha yalalka ee masaakiinta ee kula joogtada ah ayay siiyaan numbarka oo dhahan qolka waa qol iska caadi oo iska masaakiinay haloodo tag gabadhii markay timaadana kuwa waxaa la kulma intooda badan aan u bixiyo rugcadayaasha Baltoga oo gaado kuwa ku cusub si ay inta aysan u fahmin Baltoga iyo waxa ka socdo ay u majar hababiyaan haddaba waxaan galay qolal aad u fara badan laba qol baan geli jiray oo qolka kombiyuutarada ee maamulka bal inaan ogaado xaaladda dhabta ah ee ka jirto wuxuu ahaa qolka 38 kaasi markaan ka tegayna markii dambe waxaan kusoo gabagabeeyay qolka 26 oo gacatiyo la magac baxay isagana haddaba qolkani qolashan waa labada qol aan isdhihi karo maanta Baltoga waa kuwa ugu fara badan ee dadka bilinkiisa ay galaan qolka 38 isagu waa boqol laga inta xun lagaba sii sheego oo akhradiisa kaasi iskaba iloobayda laakiinse halka 26 qolkani dad yar oo akhyaar ay iskugu yimaadaan inta badan macaanka waxaas rabin haddana weli isagana wuxuu ku sii jiraa qaybaha aan u bixiyay akhramoog dadka soo galay intoosa badan waa dad sina raadiyo waa dad telefoonada iskugu siiya amaba sina balamo ah oo meelo ku balamo si ay maaragtay faaxishada inta xuman ay sameeyaan haddii aan soo qaato maamulka 26 wuxuu ahaa yar aad iyo aad u macquul galaysan waxa aan ka dhaadhacsiyey bal inuu maadaama aan shaqada hayo in barnaamijkani ay ku bedelaan barnaamij ugu khayr badan oo ah bal in guul rasmi ah laga sameeyo isagoo oo ay muraal jirin mid aad macquul gal u ahaa ayaa wuxuu yiri bal maalin baan samaynayaa bal arago maalinkii ayuu ii sameeyey bal dadka guurka rabo waaba dad ka qoostay oo rajaba kala hayn wax la yiraahdo guur ama rajaba aan ka qabinba taasi oo macnaheedu uu yahay dadka soo gal intooda badan waxay u badan yihiin saddexda magaalo oo Mareykanka ugu waaweyn dadka degan Minneapolis, Ohio, Seattle, Washington haddii aad eegay oo weydiiyo su'aal inta badan dadkiina arki kara gabadha arki karta boqolaal wiilala oo aad u qurux badan iyo kuwa agoola ama nooc walba oo doofeeda ah maxaa ku kalifaya inay dooqadan ka raadiso ama wiilka aan weydiiyay wax jawaab lima siiyo inta badan way ka xanaaqi jireen waxaan jiray in ayaa leeyihiin oo intan ayaad qarinaysaan laakiinse waxa ay isticmaalaan waa qol mugdi ah qolka mugdigana intiisa badani waxaad moodaa ay kuligooda inay wax khaldayaan oo iskhaldayaan dadka soo galo waxaan ku qiyaasi karaa 25 inay ugu da'yar tahay ilaa ay 40 dadka badan 40 sano 46 sano da'da gaarayso inay galaan cadayaashani aan u bixiyay festiga akhramowga waxa baba waalidiinta awood u leh inay gabdhahooda ka xakameeyaan kuwa faraha laga qaaday iyo wiilasha faraha laga qaaday marka ka reebo in ay ka ilaaliyaan oo fiiriyaan waraaqaha ka fiiriyaan biilasha telefoonada aan idin caday doono haddii aad ku aragto telefoonkii 218 waa la bedelay hadaa aragto 218 936 43 amaba 218 936 43 hadaa aragto lambarkaasi oo ku aragto waraaqda biilasha gabadhaasi waxay gashaa Baltoga ama wiilkaas wuxuu galaa Baltoga taasi shaki kuma jiraan sida ayaa ku baari kartaan Baltoga kale ee isku caayay isagana haddii aad ku aragto lambarka 218-339-6255 hadaa aragto waa la oo kuwa la iska caayo 4 saacadood ee jacaylka ka socdaan ee la iskugu siideeyo wuxuu kalenta lambarkiisa kala yahay isagana 218-339-63 telefoonada noocaas lambaradaas hadaa aragto xafuutaada waxay gashaa Baltoga waxaana rabaa waalidiinta gabdhahooda kontrolshay ee guriga u jooga inay gabdhaha kale ee gorobyada ah ay ka dhumiyaan oo ay siiyaan lambarka xilliyada ay saxdaan waalidkoodna ay soo galaan Baltoga waxa laga yaabaa inay wiilka barato nin ka basax weyn oo 40 sano jiro ama 36 sano jiro oo ku afriyo waxayna u sahashaa
in ay ballamaan oo ay ku ballamaan magaaladaasi uu tago halkaa habeenna ayada ay kaaga baxsato headlaw soo fiirinaya kadibna halkaa fasta iyo balaayo ay ka dhashaan haddaba weli waxaan kasoo saaraynaa buug la yidhaahdo talada baraysay bulshada oo aad u qiimo badan oo weli aan ku jirno oo isagana aan kusoo caddayn doono haddaba waxaad ogsoonaataan in aad ka kontarooshaan ninka gabadhaad dad yoga ragga masaakiinta ahi ee shaqaysta xaasaskoodana fiilasha waraaqda ha ka fiiriyaano inay gasho baalka toogay in kale lambarada aan sidaa idinku caddeeyo waxaanu kusoo qori doonaa bage aad u qoraal ah oo idinku jiri doonaad ka fiiri doontaan barta internetka wadanitv.com barnaamijkan oo tafatiran waxaan idin dhammaystiri doonaa hadduu ilaah yidhaahdo jimcaha soo socdo waa aniga oo idin leh mar kale kulanti wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu